agtayda gaalay ka yihiin saasaan u yidhi hadda mii fahamtay horta walaalay waxaad ku hadlayso waaqa sheegaysana wax jira maaha oo waaq haddii la macneeyo dadku waxa loo aqoon jiray samna jahiliya la ahayo ilaahay baa loo aqoon jiray muslimiintuna weligood waxaan ilaah ka baxsan weligood ma caabudin inta kale waxaa tidhi islaamku wuxuu jiray 1500 oo sano waa runta islaamku wuxuu jiray 1500 oo sano waayo xilli walba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diraayay rasuul buu soo diraayay rasuulka uu soo dirino kitaab gooniya buu watay inagu waxaan ku beeganay xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam baynu ku beeganay sallallahu alayhi wasallam rasuulkeena maxamed waxa la soo siiyay kitaabkaas oo la dhaho furqaan baa la soo siiyay marka waxa loo baahan yahay qof walba oo dhasha xilliga nabi maxamed inuu raaco nabi maxamed baa loo baahan yahay maaha inuu raaco ciise inuu nuux raaco inuu cid kale raaco maaha waayo haddii aynu joogi lahayn xilligii ciise waxaynu raaci lahayn ciise oo waxaynu nahay ummadii ciise laakiin hadda waxaynu nahay ummadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa inaynu isagu raacnaa waa inaynan waxa ku gaaloobin waa in waxa weeye ilaahay wuxuu isaga soo faray inaynu waxa weeye ku dhaqanno way mid kale waxaa tidhi nabi maxamed xaggee loogu waxyooday nabi maxamed waa loo waxyooday waxyigana waxa weeye jibriil calayhi salaam baa u keeni jiray ilaahay baa ugu soo dhiibi jiray waxa weeye waxa uma laataana waa diidan tahay soo ma ma dhamaysatay abu okay marka aniga la hadlaysid waxaan ka codsanayaa inaadan igala dhaxalin diinta dhexdeeda su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay maxaa caddaynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in uu jabriil u yimid maxaa caddaynaya waxaa caddaynaya ilaahay subxaana watacaala baa ka hadlay oo inoo sheegay kitaabka wuxuu ku jiraa qur-aankay ku jiraa wax uu ilaahay ka hadlayna wax cidi diidi ka dhow maaha bal tagoo waxa weeye kitaabka qur-aanka soo akhri waa arkaysaa markaa adigu waxaa malinayaa dee bibalka bes ba akhrisaa soo ma walaalo macana midaan rabaa inaan maanta ku baro adiga dandigu waa xaaraan horta mataqaanaa dandi mataqaanaa dandi hadda anaa i dandigo horta hadda waa dambaawday ilaahaaga barya waxaa tidhahdaa ilaah uu cafi waa dambaaba ku dheh maxaan ku dambaabay walaal waxaa ku dawaawday aniga kitaab kiristiyaan ma akhrin anaa igu danniday soo beenaa sheeg marka danniga ma fiicno maxaa akhrisaa adiga hadda waxaa ka xishoonaysaa macnaha dhikilahaagu ma awoodid miya inaad tiraad ilaahay waa dambe because anaa i danniday anaa been iga sheegtaad waa gartay ilaahaga u toobad keende ilaahay uu cafi ku dhahtay maya haddii aan been kaa sheegay anigu waxaan ahay qof bini aadan ah markaad adigu diidan tahay diinta islaamka aniga waxay ila muuqataa inaad diin kala haysato soo ma diinta haysatona ugu yaraan walaalow fiir aan isfahano okay aan isfahan iskuma fahmayno markaan kow kula hadlayo waxaan kugu idhi walaalkayo markaa aniga ila hadlayso kitaabka dhexdiisa ha igala hadlin qur'aan ha ii sheegin nebina ha ii sheegin hal su'aalaan ku weydiiyey iga jawaab nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee sugti hay dhex gelin abu macaan dhegeyso waa ku siinaa meeg nabi maxamed waa maadi waa aragnaa waa u jeednaa nebigii dadoo ahaa hadalkiisuna waa maqlaynaa waxay ii sheegtaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jabriil iyo asaga meeshay ku kulmeen cidda la aragtay kitaabkii oo jibriil keenay oo qornaa maro oo watay soo u ekaa bal ii sheeg walaal jibriil markii koowaad waxay ku kulmeen godkii uu nabigu waxa weeye ku cibaadaysan jiray oo qaaru xiraa la dhaho soo ma lihid meesha ku kulmeen ii sheeg ya caddeen maxaa caddeen u ah okay su-aalaan ka weydiinayaa سؤال لو intaana taa kaaga jawaabin su-aal yaraan ku weydiinayaa marka hore taydii iga jawaab adiga ta kale inta aan u imaanay tana may waa kaaga jawaabayaa wax yar waaye waa easy okay su-aasha ku weydiinaya waxa weeye adigu walaal wax naf ma leedahay ii sheeg naf kugu jira sooma ana naf ma aaminsani abu meesha iga jirta ii sheeg masanka iga jirtaa ma halkaan iga jirtaa intee nafta ku jirtaa ii sheeg inay naf kugu jirto ma aaminsanin miya may
maxaa aaminsan tahay marka maxaa kugu jiro oo aad aaminsan tahay adigu astaghfirullah. No, su'aasheedii iga jawaab. waa isku wallaahi dambaabeynaa billahi Soomaalida aniga. Warniyow nafta meesha waxaa la kaaga yidhi jirta ma guskay mataqaana kaaga jirtaa ma ishay kaaga jirtaa nafta meesha kaaga jirta ii sheeg niyow. Ilaan annaga waa waxaan u ruux jeednaa xibno bas aan u walaal jeednaa xibno. ruux waa walaal naftu intee ku jirtaa walaal ruuxda naftu marka waa marka dhexaysa yaa naf arko macnaa boorsadeeda may sii qaadataa garbasaar may sii huusataa markii aniga iga baxday inte macnaa yaa arkay meel lagu ark bal hala soo celiyo ruuxdan maxay u bixi horta anagaaba u baahane ruuxda anagaa u ilaahay baahan ma ugu talagelin ilaahay subxaana watacaala ma ugu talagelin in waxa weye nafta ama ruuxda la arko walaalow dhibaatada jirtaa waxay tahay dhegeyso ilaahay inaaba su-aal ka taagan tahaba dhegeyso walaalow fiiri abow dhegeyso fiiri dhegeys su-aasheedii iga jawaab haddii kale waa isla walaaqanaynaa su-aasheedii iga jawaab walaal su-aashaadii waa kaaga jawaabayo waxaanan caddayn loogu hayn oo aanan loo arag waa sidaa naftaada loo arag waaye ma garatay ilaahayna waa u waxyooday waa wax cad oo la og yahay ummadihii waxa weeye ina ka horeeyena waxa weeye abubakar iyo si fiican baa loo tusay inuu jibriil yimaado inuu la hadlo inuu qur-aanku soo dego oo waxyahaan loogu keeno waa la arkay ma garatay marka wixii xaqa ah waa isla fahnay taas niyo insha kama allah jawaabaysa fiiri ila insha allah waxaan meeraysa waa rajeynayaa mataqaana waxaan rajeynayaa hal mid baa ku dirsan waxaan rajeynayaa ilaahi subxaana wataala horta aniga waxaa tahay waxaa gabar walaashiya oo soomaaliyeed baan ahaa inuu markay dhegeyso dee may wacdi maaha anaha i wacdin walaal macaan dhibaata discussion aan samaynayna moogtahay waxaa mamnuuc waxaa ka ah dood markii la doodayo waxaa mamnuuc ka ah in lays shaksi ataago in lays waaniyo aa mamnuuc ka ah aniga hadda adi kuma aqaan magacaaga xataa ma sheegin su-aal iyo jawaab bas kuma ataaga kuma aniga ha i waaninin hana i ataagin aan isbahanno eeg su-aashaydii kamaadan jawaabin su-aal kale aan ku weydiinayaa adigana su-aal kale ay weydiinaysaa tan waa ka gudbaynaa ma joogtaa geesi ma joogtaa sax okay su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay waxaa ii sheegtaa nebi aadan luuqadii uu ku hadli jiray iyo meeshu adduunkaan ka deganaay ma hindiyou deganaay ma jaynou deganaay ma wuxuu deganaay soomaaliya meeshaas aan kaa rabaa nabi aadan horta marka koowaad oo la sameeyey walaal samays ma ku 40 weydiinin sano luuqadoo ku hadli jiray iyo meeshu adduunkaan ka deganaay waan kaa jawaabay meesha la keenay markii jannada laga soo saaray baan kuu sheegayaa haye ilaa markood nabi aadan wuxuu ku jiray jannada markii la soo saaray walaal oo marka oo waxa weeye isaga iyo xaawo jannada laga soo saaray meesha uu ku noolaa oo la keenay waxay ahayd shaam bay ahayd syria shaam waxaa umaleynaya waa fahmaysaa ha aagaas waxay ahayd bilaadu shaam dhulka waa laisku dhaho bay ahayd maxaa caddeynayo qabrigiis maa ku yaal ya meesha qabrigiis maa ku yaal maya qabrigiisu kuma yaal dee maxaa caddeen u haysaa inuu shaam la keenay luuqadoosu ku hadli jiray luqadda carabiga ku hadli jiray maxaa caddeenaya luuqadda cariga ku jira buug ou qoray maa jiray buug hee kutaab oo qoray mase buug oo qoray ma jiray iyo qabri nin way dhegeysto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buug oo la yimid soo maahan oo wuxuu yidhi qur'aana laga soo dhiibay waa la hayaa qur'aankii derbiyadaa lagu qoray qaar arayaa cunay qaar meelaha laga soo aruuriyey 200 oo sano kadib aa la qoray waa fahnay صح meeshuu ku tugan yahayna waa naqaanaa imaam axmed qabiilkiisaa la yaqaanaa ahlu quraysh ibnu cabdullah meeluu deganaa qabrigiisiyaa la yeelo masaajidka u dhisayaa jooga waa loo jeeda sidaas si lamid ah nebi aadan luuqaduu ku hadli jiray nebi maxamed waa la yaqaanaa luuqad carabiyay ahayd adiga waxaad tiri shaamuu kusoo degay nebi aadan eeg waxaad tiri luuqadda carabiguu ku hadli jiray caddayntiina keen walaalay qofku waa la yiri hadduu wax diidan yahay wax walba wuxuu keenaa sabab uu kaga cararo buu keenaa moogtahay adiga ku jeedaa inaad wax qaadato ama aad wax fahanto ma rabto moogtahay inaad wax qaadato oo aad wax fahanto ma rabto sabab aad ku carardo waa keensanaysaa مع السلامة نيو الله كسي نو اك Soomaaliya mid aan rabaa inaan idin sheego iskara lahaado dadka meeshan ku jira iskara lahaado sababta ma taqaanaan Soomaalidu waxaa ka qaldan waxaysan aqoonay faraha la galaan ma marka qaar waxa lagaga baahan yahay inaad dhageysto noqoto inaad wax dhageysato oo barato sida loo doodo bal YouTube ka galo waxa ku qortaa dood ku qor dood misha heesaha iyo shiinacada wax soo dhigay habalaha reaction sabixi fartum balbalaarka soo hadashay maslaxa iyo tooshaas dagaal inta ku jirtid waxa soo barataa sida loo discussion sida loo sameeyo soo baro waxa soo barataa sida loo doodo sida su'aalaha la isku qof Soomaaliya
oo maanta meeshaan soo koray oo mar videogan waa duuban yahay live-kaygu ku jiraa live-ka wuxuu galayaa tiktok page-kaygu galayaa aniga hal qof oo Soomaaliya maanta meeshaan ku jiro walaalkay wiilal iyo gabdhaba waa la hadlay qof aan shaqsi ahaan u caayay meeshaan kuma jiro qof walba su'aalo ay weydiinay waxaan aqaan waa aga jawaabay waxaan aqoonin waxaan rabin inaan ka jawaabana kama jawaabeeni laakiin qof walba meeshaan soo kara hal dabeecad ay ka sinaayeen dad yar oo Ilaahay u naxariista maahane dadkaas waxay ahaayeen dadkii aqliga iga la hadlay laakiin kuwa diimaha aaminsan waa kuwa daroogaysan waay qof walba meeshaan soo karo aakhirka markuu su'aalaha ka jawaabi waayay matag wuxuu ka wareegayaa darooga ah maxaan kuu suubiyaa walaal macaan aniga maxaan kuu suubiyaa aniga ii sheegi kartaa maxaan kuu qabtaa aniga nin Soomaaliya naag Soomaaliyeeday adiga gubanayo fadhiisan la oo hadalkaygu oo ku diraayo sida xabadii madfac in lagu soo riday camal ee maanta maryaha uu ku gubayaan walaal macaan aniga waxaan kaala hadlay waxa kitaabkaaga ku qoran su'aalan ka weydiiyay ka jawaab hadaad ka jawaabi karin wadaadada ula laabo ora culimada ula laabade culimada soo weydii masaajida ku dukataa waxa ka tirsan tahay madhaba ka tirsan tahay de culimada soo warayso de waxa tirada shiiqo wadaado nabi maxamed nabi aadan intuu ku duugan yahay horta soo weydii ilaahay intuu ka yimid de asaga yaa sameeyay ku dha anaga waa fahnaa saana sameeyay asiga sameeyay ilaahay intuu ka yimid horta weydii adiga anaga waa inaan fahnaa awoodi anagana sameeysan meelay ka imaad aniga hadda adiga fulayata inta ma dhihi kartid sheekh umul miya ha soo dhawow sheekh shibil miya ha soo dhawow sheekh dir miya ha soo dhawow ilaahay yaa keen horta shaydaanka waxaas ku soo sheegay shaydaanka naftirkiisa aawi ina isweydiina anaga shaydaan xataa waa u baahannahay maanta shaydaan aawi shaydaan oo inta deganta guriga shaydaan oo ku degan yahay la soo sheegay anaga u tagay aawi shaydaanka macna ninka qofka wuxuu naga rabaa macna shaydaan oo inta deganta ibliis oo inta deganta shaydaanka dhiigaaga ku jira lugla waxaas waa been shaydaanna ma jiro jinnina ma jiro sixirna ma jiro illa ma jirto quraafaada jiro dadkan waa dad sumaysan ma shaydaan ku yaal wiis su'aal ma qabtaa soo dari marka su'aasha qabay waa ayo aniga cadaalada sameeyna walaalayaal qof dadka sida loo soo kala horeeyay u qabanaya dadka qofba qofka ka soo horeeyay aan soo qabanaya shuruucdeedina waxa ka baxsaneed qof oo sawirkiisa u saarneen ma soo qabanay qofka raba inuu caytamo faaco waa inuu sawirkiisa u saaran yahay agana la noqolaan macaan hallo feega ta al-shabaab aniga al-shabaab ma soo qabanay igara la hada al-shabaab ma raba aniga qofka raba inuu dood soo koro wajigiisa laan dheeranimo halka soo koro naya hello maadaa inaaga nabadiyo haa ku maqlayaa nadii ka haysataa waxaad naga caawisaa waxaad noo sheegtaa walaal waxaad noo sheegtaa adigu yaad caabudaa bal noo sheeg hooyada markay ku soo barayso socodka ma ku soo barto waxa la yiraahdo hooyada qadka ka wasta dilayahay dilada dhashay dabowga badan leh ilaahay baad ku caasiday bahalayo ku yaala waaweyn gaala ku wastay fataaladii waa fataaladii namyadu waa la tabaad wada ligda wareeraysa dilaya qaxawada lama xagaasiya bahalayo muraayada waaweyn dabkooda u nasteexay xallo nasteexay waa dhilo nasteexa qaadamaysa maya nasteexa side dilata nasteexa xagad ka qaadan amal ku nasteexayna maya وديت مكوكو سعولنا يا خمر بذهبي سمع الله كويا بابا حق لا جبته اخرام قال صاد لنا بكون استحنا اخرام قال صاد لنا marka ay dhahay Soomaalidu gaalo waa kuwaas mid aaminteen had marka ay dhahay dadka Soomaalidu ama ku nastaxana waxa la leeyahay Soomaaliya maxay dawladda aga dhalan laada maxaa ummadda isku diray
waa taasaa daarab inaad aragtid